shanta waddan ee ugu wanaagsan in ay qoysaska ku noolaadaan. Waa qoysaska muslimiinta ah marka loo eego shantee waddan ayaa ugu wanaagsan qaaradda Yurub. haddii ay tahay markii kugu horeysay bartaan reer shacabka YouTube soo booqatay waxaan ku leeyahay YouTube-ka qaybta hoose subscribe inoo sar waa inoo muhiim waana inoo dhiirigelin sidoo kale asxaabtii hore dadka mid ah ku maasan tahay inaad YouTube-ka ku taxan tahay muuqaalka laagta aan nala gees mari. Shantan waddan marka la fiiriyo dadka muslimiinta ah siiba qoysaska way u wanaagsan yihiin inay ku noolaadaan. oo marka la fiiriyo nolosha caadiga qiimaha haddii la fiiriyo daryeelka ilmaha iyo qoysaska iyo amni ahaan intuu markii la fiiriyo waddanka shanaad waa waddanka Finland. Kaalinta shanaad ayuu uga jiraa wadamada ugu wanaagsan inay qoysaska ku noolaadaan siiba qoysaska muslimiinta waddanka Finland. Waxbarashada ugu fiican dunida ayaa markaasi waddankaas ka jirta uu leeyahay amni iyo xasilooni badan ayaa ka jirta waddankaas. ku fiicnaan qoysaska jaceylka nolosha degan ayaa uu ku sii fiican yahay waddanka Finland. waddanka afraad waa waddanka Netherlands. haddaba Holland maxay ku fiican tahay? Caruurta si wanaagsan ayaa loo daryeelaa waddankaasi Holland. nolol degan iyo work life balance fiican ayay leedahay. macnaha dadka shaqeeya noloshooda way isku dheelatiran tahay qaabka ay u nool yihiin iyo biilasha soo gala waddanka Netherlands. dadka guud ahaan waa nidaam san yihiin waddankaasi marka la fiiriyo. waa waddan runtii aad u wanaagsan. kaalinta afraad ayuu uga jiraa. haddii aad Netherlands ku nooshahay waa waddan runtii aad u wanaagsan ama hadda kadib aad doonaysa inaad tagtid. waddanka saddexaad ee leedahay waa waddanka Jarmalka. kaalinta saddexaad ayuu Jarmalka soo galay. Jarmalka markii la fiiriyo isku dar ugu fiican ee shaqada qoyska aad ayuu ugu roon yahay. waxbarasho wanaagsan iyo healthy care xooggan ayuu leeyahay marka la fiiriyo Jarmalka. dhanka caafimaadka aad buu ugu xooggan yahay. muslimiin badan iyo adeegyo xalaal ah ayaa markaasi waddanka Jarmalka laga helaa. qoysaska Soomaalida aad bay ugu badan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka Jarmalka. kaalinta saddexaad ayuu Jarmalka ku jiraa. halkaas ayuu cariirsanayaa. kaalinta labaad ayaa ku jira oo hal waddan bas ka sareeya waa waddanka Sweden. Sweden aad ayuu ugu fiican yahay caruur korinta waddankaasi. qoysaska waxay helaan taageero badan ayay markaasi helaan oo macnaha dawladda ka helaan. bulsho iyo deganaan nidaamsan ayaa waddankaasi ka jirta. magaalooyin badan ayaana leh masaajidyo iyo bulsho muslimiin ah oo waddankaasi ku yaala. kaalinta koowaad waa waddanka ugu jira kaalinta koowaad ee qoysaska ugu wanaagsan inay ku noolaadaan qaaradda Yurub siiba qoysaska muslimiinta. yaad is leedahay waa waddanka Norway. Norway caadi ma aha. amni iyo nolol tayo sare leh ayaa waddankaasi ka jirta. dawladdu waxay si wanaagsan u taageertaa qoysaska iyo caruurta. awood badan ayay macnaha dawladdu ku bixisaa sidii qoysaska iyo caruurta ay u taageeri lahayd. iskuulo iyo caafimaadyo aad u wanaagsan ayaa markaasi waddankaas ka jira. fasax waalidnimo iyo caawin caruur oo fiican ayaa markaasi waddankaas ka jirta. macnaha waalidiinta fasax ayay helaan oo waalidnimo ah. fasax ayay saas ku helaan. wadamada kale ma ka jirto laakiin waalidiinta fasax ayay helaan si marka caruurtooda ay waqti ula qaataan ama caruurtooda ay safar iyo dalxiis ay la aadaan. runtii Norway waxaan maqli jiray ilmaha badanaa waa dadka waa laga qaataa. ilaan taasi waxa sababa waddanka awoodiisa ayaa markaasi uu saaraa daryeelka ilmaha iyo nolosha qoyska. marka waddanka kale intuu ka daryeel iyo fiican yahay iyo macnaha garab istaag uu u fiican yahay caruurta ayuu marka caruur qaadashada uu ku badan yahay. sababtuna waxa yeelaya dadka haddii ay ilmahooda sidii loogu talagalay u daryeeli waayaan waxay taas sababaysaa inay dawladda soo faragashato ilmahana qaadato. inta muuqaalo kale waxay sala kulmi doonaan waxay sidaas iyo nabadgelyo.